waa 30 bishii lixaad 2022 waxaanu galabtay halkan isugu nimi qaar ka mid ah guddiga Noor Foundation ee UK iyaga oo sagootinaya gudoomiyaha Noor Foundation qaybta UK Faarax Yaasiin Dalmar Beeldaaje waxa ugu horeeya Abshir Saciid Axmed Abshir Sudu بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanta isaa sheegtay isugu nimi inaanu saagootinno gudoomiye Faarax Yaasiin Dalmar oo wadanka UK ka maqnaa safar ka galaya ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu safar salaamo gaarsiiyo shaqadii uu qabtay dhowrkii sano ugu dambeysana uu miisaankiisa xasanaadka ku daro waa Faarax aad iyo aad buu Noor Foundation u dardargeliyay muddadii uu UK ka jiray waxaan rajaynaynaa inaan la ilaawi doonin oo taariikhdu baal ka xusi doonto shaqada uu qabtay sidoo kale annaguna aanu tabi doono marka waxaan ka codsanaynaa inuu shaqadii uusan ka seexan gubaabadii iyo hogaankii wanaagsanaa iyo taladii odaytinimada aan ka rajaynaynaa meel kastoo adduunka ka tago inuu markasta noola garab taagnaado waana mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنت حاسون نمينا مع سلام إنه قدومي فارح ياسين دلمر بيلداجة وسفر بحياة حانو لنا هاي سفر سلام إن شاء الله أو شو بحياة أنا بحان إلهي كرجينا إنه لقرب قلو وهول ناجح إن شاء الله إنه نقطه muddadii koobneed oo Noor Foundation ee jirtay oo la asaasay oo farciga UK Faarax wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii howl weyn oo culus ayuu maaragtay qabtay muddadii yareed oo koobneed soo abshiriirana maaragtay taariikhdu insha Allah way xusi doontaa baal dahabna maaragtay wuu geli doonaa insha Allah waxaan leenahay safar salaama good luckna hawsha cusub oo maaragtay oo aan baxay marka intaas aan ugu soo gabagabeynaya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan saagootinno Faarax Yaasiin gudoomiyaha UK dalada Noor Foundation khayriga isla markaasna ah xiriiriyaha guud ee Europe oo dhan dalada u qaabilsana ilaa muddadii la sameeyay 2009 ilaa hadda marka aad iyo aad waxaan insha Allah rajaynaynaa Faarax hawsha cusub oo qabanayo u baxayo in Ilaahay ku kaalmeeyo oo Ilaahay u sakhiro oo Ilaahay u mataqaana أجري حسنات كسية وحي هوشي وقبطي نور فاونديشن وحنو تبينا حدانو نهيرير نور فاونديشن إن بوس وين نوبنلي وآدي وأتكان يسوع ورشينا إن شاء الله ينسى أتكان لكن بوس وين وعلص وآد مهم بو هاي نور فاونديشن UK حدينا اللي يرى نور فاونديشن ميسان لصارة بدي وردن أما وحنا قلنا يا ميسان كلنا عيسى إنه وبضنا يو أوليه وقبطي إسكوعركي يوروب UK يدمان حتى bariga dhexe iyo Soomaaliya iyo Afrika iyo caalamka oo dhan marka waa leader weyn insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu halka hawshiisina ka sii wado uusan meelaha cusub u tagana uu halka ka sii wado adduunka maanta waa global village internetkii iyo wixii oo dhan waa la isku xiran yahay khayrka halka uu ka sii wado aad baanuna ma taqaanaa maanta ugu faraxsanahay inaan saagootinno waana khayr baan u rajaynaynaa iyo inuu hawshiisii wado insha Allah taala Noor Foundation UK-na way u mahadinaysaa oo u mahadnaqaysaa shaqadii uu qabtay muddadii uu joogay maamulka ay salaamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan maanta ku sagootineynaa Faarax Yaasiin Dalmar Beeldaaje oo ahaa gudoomiyihii Noor Foundation ee wadanka UK iyo isku xirka Europe oo dhan waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa in shaqada uu u baxayo haddana in ilaahay uu ku saacido markii ugu horreeyay ayaa hadalka dhameeyey laakiin taariikhdu way xusi doontaa waxyaalaha uu u qabtay waana uu ku mahadsan yahay waana wax loogu lahaa in uu sameeyo
laa shukra cala alwaajib baan marka ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in uu miisaankiisa xasanaadka u saaro waxaana leenahay ilaahay u garab galo wixii aa hadda u baxday waa inaadna ka sii wadid meesha aadan ka seexan waana kugu garab taaganahay asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا سلام يا إمان داوداياش مeel kasta ay joogaaneen asxaabta Nur Foundation taageerada meel kasta ay joogaaneen waxaan halkan galabta ku soo watinaynaa gudoomiye Faarax Yaasiin oo ah gudoomiyaha UK oo u socda Afrika waxaan leenahay ilaahay nabadgeeyo hawshiina waa wada wadaynaa intaasaan ku soo koobaya aniga soo watinta waxaan kaleeto oo la hadlayaa dhammaan dadweynaha beelweynta Cali Salamaan meel kasta ay joogaaneen iyo cid kasta oo Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ururka khayriga ee Nur Foundation ku shaqeeya kana shaqeeya danaha dadka iyo deegaanada aynu ka nimid salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين runtii waxaan farxadda la qaybsanayaa tiinkaygii injineer Siyaad Cabdirasaaq iyo Isha Abshir oo ah سعيد أحمد صاحبك ويسوون هذا جريج قرين دونا سنة كسر صعدة iyo سعيد عثمان iyo الشيخ عبد قسيس تليق runtii sharaf bay ii tahay inay saaxiibaday maanta ii saagootiyaan hadda way amaaneen laakiin runtii hawsha Nur Foundation iyaga hayay anigu oday baan ugu ahaa waxaana ka codsaday maanta inuu soo jeediyay in maadaama aan anigu doonayo inaan hadda waddankan ka tago oo u wareego meel kale in aan xilkii aan u hayay hay'adda gudoomiyenimada ahaa baneeyo saaxiibadayna waxay iga aqbaleen inay ka tashanayaan laakiin waxay ii sheegeen inay iga aqbali doonaan waxaan kale oo iscasilaadeeda insha Allah u gudbin doonaa iyada oo sidan oo kale ta ah gudoomiyaha guud ee Nur Foundation Cabdulqaadir Tuube waxaan rajaynayaa inay tahay Nur Foundation hay'ad khayriya oo runtii mudan in loo shaqeeyo waqti la geliyo ilaahayna loogu dhawaado إن شاء الله تعالى أنا قلنا واحد صاحب بدي وشيء إن أي تهاي قف كقدوميها نور فونديشن ونقولنا هو هذا قف ودي كان شوقة لكن أنا نقول أهان دونه نين يجا كم ذا صاحب بدي يعني مرنا إلا ودونه إن شاء الله لكن واحد بني حلكي قدوميها نمذا إن شاء الله واحد يكون كان صاحب اللي أنا كلنا قدوميها نور فونديشن عبد القادر توبة waxaan rajayn doonaa insha Allah inay gudoomiye cusub oo hawlkara oo iga daayar oo iga firfircoon ay soo dooran doonaan insha Allah aniguna insha Allah waxaan balyeynaya waxaan leeyahay waa ku maaseen inay maaragtay aad isaagotidaan wixii su'aalana insha Allah way weydiin kartaa